raxmatullaahi wabarakaatu. Xalqadan waxaan kaga hadli doonaa dagaalka sokeeye ee Suudaan, xaaladda cusub iyo saadaasha mustaqbalka. Ciidanka militariga Suudaan oo qabsaday qasriga madaxtooyada 26 Maarso. Ciidanka militariga Suudaan ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta qasriga madaxtooyada ee bartamaha Khartoum, iyagoo ka saaray maleeshiyada RSF oo Rapid Support Forces. Tani waa guul istiraatiiji oo muujinaysa in xaaladda dagaalku isbedelayo. Haddii ciidamada militariga ay dhammaan la wareegaan caasimadda, waxaa la filayaa in RSF lagu riixo gobollada galbeedka, gaar ahaan Darfur. Arrintani waxay rajo gelinaysaa malaayiin qaxooti ah oo laga yaabo inay guryahoodii dib ugu laabtaan, taasoo caawin karta in laga hortago macluul ba'an oo haatan saameysay ku dhowaad 3/4 shacabka dalka Suudaan. Muhiimadda guusha militarigu ee qabsashada qasriga madaxtooyada. Militariga Suudaan ayaa ku guuleystay qabsashada qasriga madaxtooyada, taasoo ah guul muhiim ah maadaama RSF ay maamuleysay caasimadda Khartoum tan iyo bilowgii dagaalka. Inkastoo RSF weli ka taliso xaafadaha koonfureed ee Khartoum, haddana guushan waxay astaan u tahay in militarigu ay xoog badan yihiin. Guushan waxay culays cusub saaraysaa militariga si ay u bilaabaan iska dalka iyo dib u soo celinta adeegyada muhiimka ah sida biyaha, korontada, sahayda cuntada iyo wixii la mid ahba. Waxaa la filayaa in militarigu dhowaan ku dhawaaqo dowlad ku meel gaar ah oo rayid ah, taas oo wax ka qaban doonta xaaladaha bini'aadanimo, xaaladda dagaalka iyo awoodaha labada dhinacba. Bilihii u dambeeyay, ciidamada militariga Suudaan ayaa helay hub casri ah oo ay ka heleen dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Shiinaha iyo Ruushka. Sidoo kale waxay aad u kordhiyeen qorista askarta cusub, taasoo sare u qaaday awoodda dagaal. Dhinaca kale, RSF ayaa wajahaysa caqabado waaweyn oo dhanka sahayda ah, taasoo ka dhigaysa mid daciif ah marka la eego awoodda dagaalka. Waxaa la filayaa in RSF ay dib ugu laabato gobollada Darfur oo ay sii xoojiso go'doominta magaalada El Fasher, taasoo halis gelin karta malaayiin qaxooti ah oo halkaasi ku sugan. Rajada nabadda iyo doorka beesha caalamka. Ilaa iyo hadda, labada dhinac midkoodna ma muujin rabitaan dhab ah oo ku aadan wadahadal nabadeed, balse iyadoo macluul ba'an soo food saartay dalka, waxaa laga yaabaa in la gaaro marxalad lagu qasbayo dhinacyada dagaalamaya inay wada hadlaan. Beesha caalamka waxay si weyn diiradda u saartay dagaalada ka socda Gaza iyo Ukraine, taasoo ka dhigtay dagaalka Suudaan mid la iska iloobo. Dalalka khaliijka ah iyo kuwa deriska la ah Suudaan ayaa fursad u helay inay saameyn ku yeeshaan dagaalka iyagoo ka faa'iideysanaya. Weli waxaa jiro fursado diblomaasiyadeed oo lagu xalin karo dagaalka. Kulanka deeq-bixiyayaasha ee London ee bisha soo socota ayaa noqon kara fursad muhiim ah, balse waa in dhinacyada dagaalka lagu casuumo si ay uga qayb qaataan wadaxaajoodyadooda. Siyaasadda Mareykanka ee xilligan ku aadan Suudaan. Dowladda cusub ee Trump ayaan weli si cad ah u muujin mowqifkeeda dagaalka Suudaan. Xoghayaha arrimaha dibadda Marco Rubio wuxuu bishii hore sheegay inuu qaadi doono tallaabo adag oo ka dhan ah Imaaraadka Carabta oo lagu eedeeyay inay taageeraan RSF. Si kastaba ha ahaatee, booqashadii dhowaan ee taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Sheikh Tahnoum bin Zayed oo Washington lagu soo dhaweeyay ayaana lagu soo hadal qaadin arrimaha Suudaan, taasoo muujinaysa in maamulka Trump uusan weli si dhab ah u wajihin xaaladda Suudaan. Siyaasadda cusub ee Mareykanka ayaa lagu arkay warmurtiyeed uu wasaaradda arrimaha dibadda ka soo saartay toddobaadkii hore, kaasoo diiday in RSF ay dhistaan dowlad keli ah. Tani waxayba u muuqataa in Mareykanku si dadban uu u aqoonsaday militariga Suudaan oo ay u arkaan xukuumadda sharciga ah ee dalka. Haddii Mareykanku uu doonayo inuu wax ka qabto xaaladda Suudaan,
waa inuu xiriir la yeesha ay leeyihiin dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda, gaar ahaan Suudaan, militariga Suudaan iyo dalalka khaliijka ah, si uu gacan ugu geysto in la gaaro xabad joojin iyo xalka nabadeed ka hor inta uu dagaalku marin intuusan dagaalku marin cusub qaadin. intaasi waxaa inooga dhan xalqadii yareed ee aan kaga hadlaynay waxyaabaha kusoo kordhay Suudaan.